ku bilaabayaa magacayga Najmi Shooriye Maxamed waxaan kamid ahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku suganahay meeyga kamid ah Hiiraan meeshan magaceeda xaldhaa Xasan Raqay waxaan u imaaday argagixisada al-shabaab inaan ka saarno annaga u dhan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama oo gumaaday ku hayaan maatada iyo shacabka iyo intii ku nool oo dhan deegaamadan maadaama ay ku hayaan dhibaatooyin shacabka Soomaaliyeed inaan garab istaagno oo wax walba dhib ay ku hayaan aan ka dulqaadno aan u taaganahay haday nafi u jirto inaan ka qayb noqdo oo meel walba al-shabaab ku jiraan aan ka saarno diyaar aan u nahay shacabka waxaan leeyahay intii aad ma taqaanaa horta waxa aad howlgalka nagu jiro allaha guuleeyaan leeyahay wixii naga dambeeyana sida anaga wadada mari doonaan rajayna dhibaatooyinka caruurta iyo waayeelada iyo dhalinyarada intaba ay ku hayaan oo u dulqaadan waayay waxaan u joogaa hadda wax walba dhibaato ay ku hayaan inaan ka saarno maadaama ay shacabka iyo marista iyo waayeelada ay dhibaato ku hayaan inta ku hayaan in ka badan inaan ku hay doono aan la daba joognaan u sheegaya wallahi intaan wadaan soo marnay ama dal soo marnay waa soo xureynay inta noo dhiman waa xureynayna waxaan leenahay inta noo dhiman guul aan rajaynayna inaan guuleysano annaga sidaan shacabka aanu garab siinayna ayagana garab ay soo siiyaan ayna garab joogan ee waxba inay luqyada ku jirin ay soo baxaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed soo garab istaagaan anigu baaqaya ayagana